baarlamaanka Soomaaliya maanta ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa waxa hareeyay buuq iyo sawaxan xarunta ay ku shiraan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ay soo xaadireen xildhibaano aad u badan ayaa waxa ka dhex bilowday buuq iyo foodo kadib markii xildhibaano ka soo horjeeda mooshinka ra'iisul wasaaraha laga wado ay buuq kiciyeen gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa ilaa iyo 2 jeer ka baxay hoolka ay ku shiraan baarlamaanka ka gadaal markii uu xakameyn waayay buuqa xildhibaanada iyadoona mar qura goobta ay noqotay mid sawaxan iyo buuq hareeyay waa ku joojinayna shaqada warqadii yaa jajaxay oo koorumka iyo buushika ma jeexjeexin lama soo dhigin miya gudoonkaad weydiinaysaa lama soo dhigin uu la maqday xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka ayaa la wareegay buuggii xaadirinta xildhibaanada iyo warqadihii ajandayaasha iyagoo watay qoraallo ay ku qornaayeen in aan cod lagu bedeli karin lacaga wasiiradu haddii ay wax yeeshaan bari way ku soo noqonayaan xildhibaanadu shalay markay baarlamaanka galayeen way tuugtamayeen maantana fawday wadaan qaranka Soomaaliyeed badbaadadiisu waxay ku jirtaa inaan ku kala baxno cod walaalahay waxaan leeyahay saaxiibayaal codaan ku kala baxno iska daayo fawdada dagaalkana joojiya hadda gudoonkii waa lagu buuqay waa uuna ka kacay meesha xaaladda maxay noqon kartaa kula taa gudoomiyaha waxa laga rabaa waa qoortii labada garab u dhaxaysa go'aan adag inuu soo qaado waxa jooga hay'adaha amniga ninka fawda